xanuun ahayn oo spectrum waxa la dhaho weeyaan waxyaalo badan oo isku darsan iyo talaalkan la dhahayo mumps measles iyo rubella ama jadeecada loo qaato wax u dhaxeeya ma jirto waayo hadda waxaad ku kala fahmi kartaan xataa qofkii dad badan waxay ku dhahaan ilmaha maan talaalin laakiin laba tisama qaba waad garan kartaa xanuunku wuxuu ku dhacaa ama ku dhacay gobolkeenan ilmo badan oo aan la talaalinba ilmo badan aan la talaalin a lot of families السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا إذا عدا KZY SLB إذا عدا جاليدا صوماليدا مقالدا سان كلاود ولغا دغيستو موجدا بقول إيشان لبيع حال مقالدا سان كلاود لنا كلانا aad ka dhageysan kartaan bartayada Facebooka iyo meelaha kale ee social media aba barnaamijkeegan maanta hadii lahayd waxaa noogu marti ah Muno Faarax oo iyada family nurse practitioner dhakhtar ka howlgala ee gobolkan Minnesota waxaanan ka hadlaynaa maanta oo barnaamijkani uu ku saabsan yahay fariimaha la xiriira talaalada gaar ahaan talaalka jadeecada ayaanu maanta kaga hadlaynaa kaas oo arin ay dad badan oo dabcan waalidiina aad u daneeyaan dadka caafimaadka shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota ay fariimihiisa aad u daneynayso inay u gaarsiiso bulshooyinka ku dhaqan ee magaalada inta aanan bilaabin muna ku soo dhawow magaaladaadii St. Cloud mar kale actually xataa aad waliba jaamacadda mar ka dhigatay waa kugu soo dhaweynaynaa inaad idaacadda maanta nagu soo booqatid guud ahaan waxaan jeclahay inaad ka hadashid waan rabaa inaan marka ugu horeysto aan ka wareysto horta talaalkan waxaan ka hadlaynaa jadeecada iyo talaalka laga qaatay maarta loo yaqaano bal wax nooga sheeg ku saabsan macnaheedu talaalka jadeecada iyo sida ay ku fido walaal Axmed waa mahadsan tahay St. Cloudna kole sidaan kaga tagay wax badan iskama bedelinin jadeecada haddaan u soo laabano horta sanadkii horeeto 2024kii waxaan haysanay outbreak so dad tirada ka badan oo ku dhacay baa jiray statekeena jadeecadu waxa weeyaan xanuunada lagu kala qaado waxa la dhaho airborne so hawada lagu kala qaado qofkii hindisay ama ku qufacay meesha barkuus qof kale soo maro sidaas lagu kala qaadaa marka haddadan aynu joogno Minnesota aad baynu yara fiicanahay laakiin steedada kaleeto lucky maaha waayahay jadeecadaasi mararka qaarkood wadamadii aanu ka nimid waxay ahayd xanuun aad u xun oo dilaa ah oo saameyn weyn ku sameeyay gaar ahaan wadanka anagu hadda barnaamijkan aanu ka hadlayno af Soomaaliga dadka Soomaalidu aad u yaqaanaan xanuunka hortiisa maxaa lagu gartaa qofka haday jadeecadu ay ku dhacdo jirkiisa sidee noqdaa maxaa lagu dareemaa in qofkaas jadeeca hayso jadeecadu waxa weeyaan xanuunada oo horta marka qof ku dhacdo jadeecadu waxa laga yaabaa ilaa 10 maalmood inuusan dareemin inuu xanuunkii qabo laasay hadda waxaad qolbaad soo gashay qof baa ku qufacay waad sii qaadatay waa viruska sii qaadatay laga yaabaa ilaa 10 maalmood inaadan dareeminba inay jirkaaga ku jirto 10 maalmood kadib finankii aynu naqaanay oo dadka Afrika ku dhacayba oo wajiga ka bilaabanayay xabadka ku xigay kadibna ilaa lagu hagaadhayay ee cascasaay buurbuuraa ba ku dhacaya markuu finankaasi bilowdaan waxa bilaabanaya xumadii waxa bilaabanaya kaar tiro badan caajis tiro badan waxa chronic fatigue la dhaho oo maaragtay daalka qofku uu dareemayo waxa kale oo la dhaho cap like spots oo afka oo finan yar cad ka soo baxayaan qofka baa ku xigta marka afka qofka ka soo baxaan waad garanaysaa cunto ma cunayo biyo la'aan baa ku dhacaysa biyo ma cabayo dehydration waxa la dhahayo oo jirka qalalayo baa ku dhacaya waayahay waa maxay hadda sababta ugu weyn ee wadankan Mareykanka guud ahaan gaar ahaan gobolka Minnesota iyo wasaaradda caafimaadka ay uga walaacsan tahay xanuunaadkaas oo la xiriira jadeecada gaar ahaan dadka safra oo caruur ka qaada Mareykanka hadana dib u soo celiya maxay tahay walaaca ku jira wasaaradda caafimaadka dhaqaatiirta iyo dadka caafimaadka shaqeeya
walaal jadeecada waxa weeyaan xanuunada oo maaragtay dawada loo helay oo aan aad looga warwarinin inteeda badan haddii dawada loo qaato laakiin jadeecada sidaynu garanaynoba dadka way dishaa waa loo dhintaa haddada aynu joogno 2 state baa 2 qof ku kala dhintay Texasna 1 qof baa ku dhintay New Mexico 1 qof baa ku dhintay dad badan oo tirada ka badanna way xanuunsan yihiin oo dhaqaatiirta jiifaanbo 15 state bay maraysaa hadda dadka ay xanuunka ku dhacay oo ama dhaqaatiir ku jirta ama guryahooda karantiin ku ah ama dhaqaatiir hadda laga soo saaray hadday badeen nool yihiin waxa hadda looga warwarsan yahay waxa weeyaan waqtigan aynu joogno oo kaleeto waxa weeyaan spring break waqtiga la dhaxay dadku waa baxayaan qaar cimri qaar xajki bay aadayaan qaar ilmihii bay saarayaan oo meelahaas vacation u geynayaan haddana waxaa soo socda samarkii oo 3 bilood ilmuhu fasax ahaayeen oo ama waddankeeni la aadayay ama wadamada kaleeto oo Afrikadaas iyo Europe iyo meelaha Asia haba noqotay waxay rabtaba la aadayay weeyaan baa soo socota marka waxaan rabnaa haddaad baxaysid ama cimri aadaysid ama xajka aadaysid ama aad samarka u baxaysid qofku inuu talaaladiisa sii qaato waayo laga yaabaa inaad xanuunkii soo qaadatid ama uu meeshaaba kugu qabsado adigoo ilmahaaga aysan talaalnayn ama adigu aadan talaalayn haddaad Afrika oo kale tagtay oo xanuunkii aan qof dadka laga talaalin imagine hadduu xanuunka halkaa kugu qabsado aad ku sakaraadaysid halkaas ama ilmahaaga halkaa ku sakaraadayo dhakhtar ku jiro wad garan kartaa dhaqaatiirta iyo caafimaadka ka jira Afrika halkan markaad ku soo laabatid iskuuladii iyo dugsiyadii ilmahaaga ku laabtaan xanuunka wala kala qaadaya dad waaweyn oo waayeel hooyada iyo aabaha iyo adiga uur leh hadday ilmahaaga keeno waad sii qaadaysa waa wax la dhaho weeyaan compromise waxa weeyaan dadka oo immunitygooda compromise ka yahay waayahay su'aalo badan baa marka ka imanaya xanuunkaas maxaa loogu hortegi karaa xanuunka sidiisaba qofka gaar ahaan dadka da'da yartay carruurta inuusan ku dhicin hortag waa wax fudud ilaa hadda 70 iyo dhowrkii 73 miya talaal baa jiray loo qaato jadeecada talaalkaas oo ah 2 xabo ama qof weyn ha ahaado ama qof yar ha ahaado laba talaal weeyaan hadduu qofku ilmo yar yahay markuu 12 bilood gaadho ilmuhu baa MMR dose 1 so dawada doskeeda ugu horeeya la siinaya 4 sano ilaa 5 sano inta u dhaxaysa kii labaad baa la siinaya haddaad hadda baxaysid oo ilmahaagu la 3 sano meelahaas jiro aad leedahay okay samarka waa maqnaanaynaa Kenya nu tagaynaa ama Soomaaliya aadaynaa dhakhtarkaaga la hadal waxa laga yaabaa in lagu soo hormarin karo marka labada dose weeyaan haddaad qof weyn tahay dadka xanuunka kan cidna ma badhaafo moogtahay qofkii aan talaalayn oo dhan waa ku dhacaya haddaad qof weyn tahay oo talaaladaadu ama aysan dhamaystirayn ama aadan baqaadaninba oo waqtigeeda waddanka timi aad iska shaqo tagtay oo aadan dhakhtaray waxa sii daba gelinin hadda dhakhtarkaaga haddaad u tagtid tiraahdo okay talaaladeeda hal fiiriyo wax mik la dhaho baa Minnesota aan leenahay oo vaccine-kaaga dhan record-koodii oo dhan ku jiraan hadday ka maqan yihiin maantaad mid qaadanaysaa ka labaadna 28 maalmood kadib baad qaadanaysaa soo ma aha inaad 2 sano sugtid sida ilmaha yar oo kaleeto haddaad cimrada aadaysid oo kaleeto ama xajka sanadka u socotid oo kaleeto maantaad qaadanaysaa 28 maalmood kadibna kii labaad baad qaadanaysaa waayahay talaalka ayaa rabaa isaga naftigiisana wax kaa weydiiyo talaalka loo qaato jadeecada waa 3 talaal baan filayaa oo isku jira oo MMR la yiraahdo measles mumps and rubella wax yar ka waran talaalkaasi waalidiinta qaar baa walaac ka qaba ma yahay wax dhinaca baaritaanada marka lagu sameeyey bad qaba oo lagu talaali karo carruurta iyo dadka waaweyn walaal su'aal fiican weeyaan waayo ilmaha yar markaynu ka fikirno qof kasta wuxuu rabaa ilmihiisu inay caafimaad ku soo koraan oo aan waxba ku dhicinin talaalkan ilmaha loo suubiyay si ilmuhu aysan xanuunada yaryar ay ugu dhiman jireen sida jadeecada oo kale meeqa ilma u dhintay intaan talaal helin moogtahay marka talaalka waxa loogu waa very effective wax oo uu leeyahay oo kaasgareeyo oo kaleeto ma jirto aan ahayn qofkii ilmihi yaraa in xumad ku dhacdo marka uu talaalka soo qaato caajis dareemo xumad yar oo ilaa 100 gaadhaysa ay ku dhacdo maalintaas inuusan cunto ka haynin ma ahane wax kaleeto oo hadda la leeyahay xanuunka kaleeta ka iman kara maba jirto waayahay marka waa maxay gobolkan hadda Minnesota
iyo wasaaradda caafimaadka oo adigoo hadda aad la shaqaysid in fariintan lala wadaago bulshooyinka ku nool ee gobolkan Minnesota sababta aad uga hadlaysaan ama fariintiina maxay tahay fariintan waxay tahay horta markastaba waxaan rabnaa dadkeenu inay baxaan oo dhulkooda soo maraan experience iyo stories fiican inaad la timaadid inaad xanuun la timaadid horta maraba ma aha marka waxaan rabnaa haddii aad rabtid inaad baxdid intaadan nabadgelyo na dhihinin inaadna soo martiin tidhaahdaan okay maxaa naga maqan talaaladayadii maxaa maqan idisiino dadkayga caafimaadka ka shaqeyna vaccine clinics waxaa kasii halkaysan dhul la dhahaa jirta travel clinics oo og meel kasta aad tegaysid xanuunada markaas ka dilaacay ama wuxuu raba ha ahaado si aad markaad tegtid meeshii aadan ugu sakaraadin adiga qudhadaada iyo reerkaagii markaad soo laabatidna adigoo xanuun qabtid aadan soo noqonin markasta waxa weeyaan waaba diinteenaba inaad dadka dhan la protect gareeyo ma ogtahay marka waxaan rabnaa haddaad bixaysiin ama kole adigu haddaadan bixaynin xataa dad kala baxaya maogtaa ilmihii dugsiya isugu tegayaan markay la isu soo laabto iskuulla la isugu imanayaa soo maaha mar kastaba ilmahaaga talaalkooda fiiri pediatriciankaaga u tag dhakhtarkaaga u tag weydii maxaa ilmahayga ka maqan haddii aad su-aal talaalada ka qabtid dad baa jira sida idoo kaleeto noloshooduba tahayba talaalo iyo caafimaad waxba kaleeto waa adduunka aan eeginin imaada dhakhaatiirtiina kaleeto Soomaalida u taga dhakhtarkaaga pediatricianka ilmahaaga u tagaan ama wuxuu rababa ha ahaadee ee aad ku aamintay ilmahaaga la fadhiiso ma aha qasab inaad ilmahaaga soo kaxaysid su'aal baad wax ka qabtaa waxaad rabtaa in lagu tusiyo okay ma fahansani moms wuxuu yahay ma garanayo itusi sawir baan kuu soo saaraya waxa uu yahay ilmihii yariisa oo dhuuntii barbararsan tahay ku tusinaya measles muxuu yahay waxaan ku tusinayaa jadeecadu siday u eg tahay finanka laga yaabaa inay kugu soo dhacdo aad weligaa arki jirtay xanuunka kan laakiin aadan isku connect garaynaynin waxa ay yihiin hadda marka waxaan rabaa qof kasta inuu ogaado caafimaadka horta marka hore naftaada ka feker iyo nafta reerkaaga marka taas ka fekertid communitygaagana ka feker dad baynu nahay very social oo isu imaado masaajidada la isugu tegayaa dugsiyada baa la isugu imanaya apartment deganahay elevatorada baa la isugu imanaya xanuunkan sidaan sheegayba waxa weeyaan neeftu ka imanaya qufacaas airborne waxa la dhaho oo kaleeto hindisadu ka imanaya marka waxaan rabaa in qof kasti uu talaalkiisa fiirsado isna sii talaalo intuusan bixinin waxaan kaloo rabaa in idin sheego labada dose baan idin sheegay dawadu inay tahay haddaad ka u horeeya qaadatay waa 93% effective so boqolkiiba 93 xanuunka wuu ka ilaalinaya haddaad ka labaad qaadatay waa boqolkiiba 97 effective marka I get vaccinated waa sax weyn waayahay aad baan horta ugu farxsanahay inaad ka hadashid travel clinic oo kale dadkana aad bay u safar badan yihiin intuusan qofka uusan wadankan ka safrin meeshu doonaba ha aadee ama hadduu wadamada carabta aadayo Asia dadka qaar aadaan Afrika aad loo aadaa inuu tago qofka klinigyada loogu talagalay dadka safraya inay tagaan si loogu sheego talaalada ay u baahan yihiin iyo weliba xanuunada deegaanka ka jira sida tusaalaha malaariyada kale si ay dawooyin ama kaniiniga uga soo qaataan Ebola waxa ka jira oo idil waayahay waan rajaynayaa bal inay dadka la socdaan magaaladeena St. Cloud waa ku yaalaan clinic la yiraahdo travel clinic oo qofku uu tagi karo talaaladana loo sheegi karo iyo dawooyinka u baahan yahay regionkaas oo deegaanka oo markaa ku socdo waayahay waxaan ka hadlaynaa horta saad sheegtayba waa jadeecada talaalkeedana waxaa la yiraahdaa MMR marka waalidiinta maxaad oran lahayd caruurta ku haysta hadda halkan magaaladan St. Cloud oo kale haday yihiin kuwa jooga iyo kuwa qorsheysanaya inay u safraan Afrika oo caruurtooda ka xaynaya oo soo celiya maxaad ugu dambeyntii aad oran lahayd ma samayn karaan waalidiintu waxaan dhihi lahaa horta mar kastaba waxa weeyaan waa inaad ilmahaaga talaalkooda eegtid mar kastaba eeg dadka haysta maaragtay access to recordkooda oo kaleeto oo online ka fiirin kara fiiriya maanta maxaa ilmahaaga ka maqan ma tetanus baa ka maqan ma mumps measles rubella baa ka maqan maxaa ka maqan waxa ka maqan markaas hala soo siiyo haddii aad qof af Soomaaliga akhrin kara tahay ama af Ingiriiska akhrin kara laakiin su'aalo aad ka qabtid talaalada ilaa dadka oo aan ilmahooda talaalin su'aal un bay ka qabaan jawaabna teedina waysan helin moogtahay waxa jira hadda Minnesota Department of Health waxay subiyeen
vaccine kasta iyo xanuun kasta af Soomaali kitiyo ku qoran si aad u fahantid afkaaga ugu fahantid haddii kaleta CDC-ga tooda fiiri oo wadan kasta afka lagaga hadlo lagu soo saaray waxaan idin dhahayaa ma raba information la'aan ha u fadhiisanina guriga adigoo waxaas ma garanayo markaa ma samaynayo haddaad su'aal qabtid jawaabteedii qof baa garanaya oo ku taqasusay oo yaqaanaba marka caafimaadka la xidhiidha okay way maxaa kaloo dheeraada oo aad jeceshahay inaad ku dirtid fariintan aad jeceshahay inaad u gudbishaan bulshada Soomaalida ku dhaqan magaalada St. Cloud iyo guud ahaan gobolka Minnesota inta maxaa kaloo dheeraada aad ku dar lahayd waxaan idin dhahayaa waqtiga hala fiiriyo waxaan rabaa ilmaheena inaad soo baashaashaan vacation fiican soo qaadataan wadankiini soo aragtaan wadamo kale soo martaan xasuusta Africa kaliya ma aha meesha laga soo qaadayo jadeecada wadamo badan oo Europe ka mid ah baa vaccine-kooda uu low yahay oo aan laga soo qaada sanadkii dhaweeyto halkaas nooga yimi marka ha ka fekerin hadda Soomaaliya kaliya ama Kenya aadayay halkaas ay ka tahay waa meelo badan adduunka baan jirinin talaaladu aan energy badan la gelinin ama aanba waxyaalo kale ka warwarayo oo aan talaalada aad uga warwarinin ama iyagu aysan wadanka ka bixbixin oo aysan kaba fekerin marka mar kastaba adigu familigaaga ilmahaaga mar kastaba caafimaadkooda ogow intaadan wadanka ka saarin waayahay waxaa jirta su'aal aan rabay inaan ku weydiiyo laakiin aanan ku weydiin oo muhiim u ah bulshada dhageysatay idaacaddan iyo bulsho badan waxaa jira warar kuturukeena oo dadku isla meel maraan oo yidhaahda tallaalka maarta wuxuu sababaa autismka oo aan caruur badan la tallaalin maxay ka qabaan dhaqaatiirta iyo ama wasaaradda caafimaadka maxaad arrintaas ka leediin horta waxa weeyaan xan baan ugu wacnaa taasoo kaleeto oday cadaan oo mar imaaday wadanka oo Soomaalida xooga rabay inuu wax danihiisa meesha u imaaday ayaa been abuurkaas sii sameeyay waqti hadda tirada ka badan oo ahayd 20 sano ay ku sii socotaa waqtigii waxaas qoray bacdaldaad qaarado badan ma aha wadamo qaarado badan baa fiiriyay studigiisii fiiriyay cilmi baaritaankiisa fiiriyay been bayna ahayd oo aan baseless ah wax xanuunkan iyo maxaa la dhahaa autism oo aan xanuun ahayn oo spectrum waxa la dhaho weeyaan waxyaalo badan oo isku darsan ah iyo talaalkan la dhahayo mumps measles iyo rubella ama jadeecada loo qaato wax u dhaxeeya ma jirto waayo hadda waxaad ku kala fahmi kartaan xataa qofkii dad badan waxay ku dhahaan ilmaha maan talaalin laakiin laba autism qaba waad garan kartaa xanuunku wuxuu ku dhacaa ama ku dhacay gobolkeenan ilmo badan oo aan la talaalinba ilmo badan aan la talaalin a lot of families marka wax hadda iskaga xidhan ma jirto waayo dawo oo ama talaal ilmaha wax kale u keeni karta cidna ma siiseen maaragtay hadda cilmi baaritaan badan baa ka dambeeya talaalada marka wax iskaga xidhan haba yaraatee ma jirto waayahay intaadan ka bixin gobolkan Minnesota caruurta marka la geynayo iskuulaadka waxaa jira talaalaad caruurta ay tahay qasab inay qaataan talaalada ama marka ma kamid yahay talaalaadka laga rabo waxaan arkay waalidiin badan oo xilliga timaada iyagoo muddo sugayay in la yiraahdo caruurtaada soo qaataan talaaladan ma qasab in caruurta talaaladan qaataan markay tageen iskuulaadka gobolka Minnesota iskuulada decisionka ay ka suubiyeen qaar baa jiray sanadkii horeeto ilmaha iskuulada laga soo eriyay qaarkoodna iyaga oo isku xataa county ahaa ama isku meelba ahaa wax yar isu jiray inay ilmahooda daayeen laakiin markasta waalidka la urge gareynayo la lahaa soo talaala laakiin aan ilmaha la soo saarinin marka haddii ilmahaaga la soo saaro waa talaaladu waa dhowr xabo kaliya kulligood ma wada aha hadda hepatitis A oo kale kuma jirto B oo kale kuma jirto Hep MMR mid hadda ka hadlayno tetanus tetarada mid loo qaato kuwaas weeyaan talaalada oo ilmaha sanadkii dhawato iskuulka looga soo saaray kuwii laga soo saaray marka way ka mid tahay laakiin iskuulkaaga ay ku xidhan tahay
okay waayahay intaasaan ku gabagabeynaynaa waraysigan waxaa idiin soo gudbinaya idaacadda KZY SLB Soomaalida ee magaaladan St Cloud oo laga dhageysto 105.1 sidoo kalena waxaa ka daawan kartaan barnaamijkayga dhinacan baraha bulshada sida Facebook iyo YouTube iyo meelo kaleba waxaan looga hadlayaa waxa loo yaqaano talaalka MMR-ka oo ah 3 xanuun oo aad dadku ay uga yaqaanaan xanuunkan la yiraahdo jadeecada xanuunkaas oo isagu naftigiisa walaac badan ku keenay gobolka Minnesota kadib markii caruur laga kaxeeyay gobolkan Minnesota oo aaday dibadaha markii ay ku soo noqdeen wadanka laga helay xanuun kuwaas oo markay iskuulaadkii meelaha bulshada ay ku noqdeen fidiyay xanuunkan taas oo walaac hadda ku haya wasaaradda badan oo gobolkan wadanka Mareykanka ah gaar ahaan gobolka Minnesota barnaamijkeega maanta waxa noogu marti ahayd dhakhtarad Soomaaliyeed Muna Faarax aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waa mahadsantahay okay intaasaan ku soo gabagabeynayna intaan ku kulmi doono barnaamij kale waan Axmed Laariya iyo dhakhtarad